Assalaamu calaykum, waa Yuusuf Shire. Isku soo noqod wanaagsan. fadlan haddaad channelkan ku cusub tahay subscribe dheh, share dheh, lana sii wadaag asxaabtaada. Cabsida fashilka, fear of failure. Cabsida fashilka loona yaqaan atikiphobia waa qodob aad u ballaaran lugahana la gala dhinacyo badan sida caafimaadka iyo hal-abuurka bulshada. Maanta waxa aynu dhowr qodob ka taaban doonaa waxa keena cabsida fashilka iyo sida looga tallaabsan karo. Cabsida fashilku waa adoo fisha dhicidda wax xun iyo in aad wax qaldi doontid, dadkuna ay ku arki doonaan doqon. Waxa ay dhib weyn noqotaa markii ay ka hor istaagto qabashada hawl ama shay horay kuu sii dhaqaajin lahaa. Marka su'aasha meesha ku jirta ayaa waxay tahay maxaa sababa cabsida fashilka oo qofku inuu ka cabsado inuu fashilmo oo aynu wada ognahay dareenka iyo micnihiisa. Waxyaabaha sabab maxay yihiin? 5 qodob ayaan ku soo koobayaa baaritaano badan oo aan sameeyay. Qodobka koowaad, waalid dhaliil badan oo aan taageerin dhallaankooda, markastana dhagta u gasha inaysan waxba qaban karin, ay yihiin wax mitrayaal, taas oo dhaawacda kalsoonida ilmaha lana socota inta cimrigiisa ka dhiman. Qodobka labaad, fashillo hore iyo khibrado aad u xanuun badan oo qofkan uu soo arkay, taas oo walwal badan ku abuurta in wixii waagi hore dhacay khibradii xanuunka badneyd ay mar labaad soo noqon doonaan oo natiijo wacan ayban soo baxayn. waxa kaliya ay dhacaya ay yihiin sidii waagi hore ugu fashil marakana ay ugu fashilmi doono. taas waxay keentaa iyaduna low self esteem waxa loo yaqaanay inuu qofku naftiisa hoos u arko. qodobka saddexaad, bahdilid nafeed iyo inuu qofku dhulka isku jiido oo isagu naftiisa dhaliilo, maskaxdiisana ka buuxiyo fikrado qaldan iyo aragtiyo taban, kuwaas oo inta ku dhex kobca hadhow curyaamiya awoodda shaqsigaas. qodobka afraad waa perfectionism iyo inuu qofku wax kasta perfect ka dhigo, inuu rabo inuu u sameeyo sida ugu wanaagsan. doodda qoladana waxa ay tahay waxay ku fikirayaan waxa haddaanan sida ugu quruxda badan oo ugu wanaagsan u samaynayn maxay tahay micnaha iyo faa'iidada ku jirta inaan sameeyaba. marka tusaalahan runtii waa mid aan anigu laftirkaygu soo arkay oo aan igu dhacday inaan YouTube channel furo. waxaan ku fakiray 2017 misna maskaxdayda wax ka bixi waayay haddii aadan u samaynayn fiidiyoyada sida dadka aadka uga guul gaaray heerka sare ka gaaray YouTube-ka, maxay tahay micnaha, maxay isugu lugeynaysaa oo u samaynaysaa haddaadan fiidiyo perfect iyo aad u wanaagsan aadan samaynayn. marka ciladani waxay dad badan ka hor istaagtaa inay himiladooda ku dhaqaaqaan inay wax qabtaan, laana maskaxdooda waxa ku jirta inay sameeyaan wax aad u wanaagsan oo heer sare ah. waxayna ka walwalaan haddii aysan waxaa samayn in ay dadku dhaliili doonaan tayada hoose ee ay soo bandhigeen. fikradaha noocaasi ah marka ay ku xoogaystaan maskaxda qofka waxa ay ku ceshaan xaalad uu dib ugu noqdo comfort zone ama beerta raaxada iyo meelihii uu yaqaanay, halkaas oo uusan qofku ku kobcayn kuna tijaabinayn waxyaabo cusub, isagoo ku laalaabta waxa uu yaqaanay waqti hore. marka uu isbeddel yar sameey yiraahdaba laaciya walwal iyo walbahaar badan ay ku dhashaan ilaa uu qofkii noqdo paralyzed aan waxba qaban karin. qodobka shanaad, waxaa jira cabsi kale oo dadku aysan badan u warhayn, taasoo ah cabsida inaad guulaysato, fear of success. waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid guushu waa meesha loo socday see baad cabsida uga baqi kartaa. laakiin waa jirtaa, waana eray aan dhawaan bartay. qofku wuxuu ka cabsanayaa attentionka la imanaya guushaas, expectationka ama filashada dadku ay ka filanayaan, mas'uuliyadda iyo waajibaadka badan ee soo raacaya markuu heer gaaro. waxa uu aad qofku uga walaacayaa culayska dalabaadka shaqadaas cusub ama xilkaas cusub oo uu gaaray ama barnaamijka iyo businesska cusub oo uu furay iyo waxa ay dadku ka filanayaan iyo wajiga cusub ee shakhsiyadiisu yeelan doonto. waxaynu fahnay meesha dhibku ka jiro, marka maxaa xal u ah dhibkan taagan? isagana waxaan ku soo koobayaa 5 qodob oo muuqaaladii aan akhriyay ay badidood ku doodeen. qodobka koowaad, hadafkaaga clear ka dhig, hadafkaaga caddee, kadibna isweydiin muxuu yahay shayga kaliya ee haddii aan maanta sameeyo iisii dhoweyn kara hadafka iyo himilada aan qortay ama aan degsaday. qodobka labaad, isku day inaad dadka la xiriirto
raadi mentor iyo qof kaa khibrad badan oo talo iyo tusaale ku siiya. haddii xaalka walaaca iyo walwalku aad u batayna isku day inaad u tagtid tababare ama therapy. qodobka 3 ogow fashilku waa qayb nolosha ka mid ah. waa inaad la qabsataa marar badan inaad fashilanto. caadi ha kula noqoto. waxaad aqbashaa inay imaan karto guuldarro, laakiin go'aanso inaad hawshaada qabanayso si kasta oo ay noqoto. tusaale yar haddii aan ku siiyo, carruurta yaryar markii ay socodka baranayaan maalinkii keliya 20 jeer ayay kacaan kufaan, laakiin marna kuma fakaraan war socodkan hawlahaygaba maaha aan iska sii fadhiyo, laakiin way isku dayaan wayna ka miro dhalayaan ugu dambayntii. isdhiibidda iyo inaanu ka walaacno ama ka fakarnaba fashil waa khibrado, waa aragtiyo ama waxyaabo aynu baranay waayaha dambe ee nolosha. aragti aad qadiimi u ah oo caan ah ayaa waxa ay leedahay the sphere of choice. waxaa jira 2 shay ama 2 xaal. mid waa external, waxa banaanka ka ah oo aadan controli karin, sida jawiga, cimilada, fikirka iyo aragtiyada dadka kale. ma controli kartid waxyaabahaas. waxaa jira qodobo kale ama xaalado kale oo internal ah gudaha oo aad controli kartid. awooddaada, dabeecaddaada, qiyamkaaga, saad uga falcelisid waxyaabaha kula soo gudboonaada. marka waxa weeye aragtidan waxay ku doodaysaa inaad adigu enerjigaaga iyo waqtigaaga gelisid, aad ku sii jeedisid inaad controlshid waxyaabaha internalka oo adigu saameyn kartid ama aad bedeli kartid, oo aadan waqti isaga dhumin dadka kale waxay ka aaminsan yihiin, sida ay xaaladda cimiladu u adag tahay, sida ay bay'ada u xun tahay ama ay mashaakil kala dunida uga jiraan. qodobka 5 ee u dambeeya, maskaxdaada adigu isticmaal oo iyadu yeesan ku isticmaalin. natiijo wanaagsan filo oo toos u waajaha cabsidaada markasta. wax ka baro oo qor meesha ay cabsidu kaaga imanayso iyo waxa aad ka baratay. naftaada u tur markii fashil ama xal adag kula soo gudboonaado. ogow qofna war uma hayo, kumana mashquulsana waxa aad qabanayso iyo saad u dhaqmayso. qodobka u muhiimsan oo u dambeeya wuxuu yahay qofku goortu iimaan leeyahay ee aaminsan yahay in uu waxyaabaha uusan controli karin meel kale laga controlo. wuxuu uu aaminaadiisa iyo iimaankiisa ku xiraa jiritaanka ka koreeya oo ah Ilaahay. qofka Ilaahay tala saarso, cibaadayso. marka uu walaaciyo xaalad adag kula soo gudboonaato, ducadaada badso, walwalka iyo fikirka badanna ha u noqon adoon. inta aan kulankan lamida ku kulmi doono, assalaamu calaykum. fadlan share, subscribe, lana sii wadaag asxaabtaada.